wafdigan oo ay hogaaminayso gudoomiyaha degmada warta nabad ee gobolka Banaadir ahna musharax u taagan xilka aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana deegaan doorashadiisu ay tahay magaalada Gaalkacyo Seenab Maxamuud Warsame Xaabsade ayaa maanta ka soo degtay garoonka diyaaradaha Ushaaka ee magaalada Gaalkacyo. Seenab Maxamuud Warsame oo musharax u taagan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa garoonka waxa ku soo dhaweeyay wasiiro ka tirsan maamulka Galmudug, maamulka degmada Gaalkacyo iyo qaybaha bulshada ee ku nool magaalada Gaalkacyo kuwaas oo ka kala yimid afarta xaafadood. Seenab Maxamuud Warsame oo musharax u taagan aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa garoonka ku soo dhaweeyay wasiiro ka tirsan maamulka Galmudug, maamulka degmada Gaalkacyo iyo qaybaha bulshada ee ku nool magaalada Gaalkacyo kuwaas oo ka kala yimid xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Gaalkacyo. Seenab ayaa markii ay ka soo degtay diyaaradii ay la socotay ayaa waxay gacan qaaday dadkii ku soo dhaweeyay garoonka iyadoona ugu mahadcelisay qaabka ay u soo dhaweeyeen. Soo dhaweyn kadib ayaa warbaahinta si wada jir ah u la hadlay ku-xigeenka duqa degmada Gaalkacyo iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta Galmudug. musharaxiintana haddii ilaahay musharax kasta oo yimaado kursigiisa gobolkan yaallo waxaan rajaynaynaa inuusan ku dareemin garabkiisa oo bannaan. degmada Gaalkacyo go'aan waxay qaadatay in musharaxiinta gobolkan imaanaysa si furan oo transparency oo siman aan u soo wada dhaweyno. darajo weeye hadda xil bay haysaa hadda xil hayso waa gudoomiyaha degmada Wariigley ku soo dhaweynaynaa musharaxnimadana hadda dadkii ula siman tahay waxaa leenahay soo dhawow galo wasiiro oo badan jira oo maartay hadda diyaaradda xilliga loo sheegay maartay waxa ka soo hormartay oo soo socda garabkeena qaar baa taagtaagan dhamaantii waxa u taaganahay inaan marka orange kugu soo dhaweyno darajada aad haysatid inaad nagu matashid gobolka Banaadir degmada Wariigley dadkii ay ku matalayso dadkan midda haddii la kuro ina xildhibaan tahay iyo ina musharax tahay aad doonaysidna haddii ayadana dadka loo soo musharaxiinta la soo dhaweynaya qayb ka tahay. ugu dambeyn waxaa saxaafadda la hadashay musharax xildhibaan aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ahna gudoomiyaha degmada warta nabad ee gobolka Banaadir Seenab Maxamuud Xaabsade iyadoona ugu mahadcelisay shacabka reer Gaalkacyo sida ay ugu soo dhaweeyeen magaalada. Jawaynta isku duuban waxa sharaf weyn ah yaanan ka tagin ciidanka iyo saxaafadda dhalinyarada iyo haweenka oo si gaar ah ayaguna u target gareenayo oo leeyahay maanta hawsha halkan aad ku soo bandhigteen iyo soo dhaweyntiina Allah idin barakeeyo. waxaan ku suganahay gurigii gobonimada, waxaan ku suganahay gurigii xorriyadda iyo aasaaskii midnimada magaaladeedii anigu ku abtirsado. sharaf bay ii tahay inaan maanta deegaankaygii dadkaygii iyo ciideedii gaarka ahayd aan cagaha keeno. waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo ii suurtageliyay inaan maanta halkan imaano si sharaf iyo mugle iyo miisaan weyn liigu soo dhaweeyo. waxaan leeyahay hadalkayga iyo ujeedka aan u imid gadaal baan u dhigan doonaa insha Allah. qoraxda maanta dhan baa taagneedeen meelo fogfog waa laga yimid. waxaa idin leeyahay qalbigan idinkaga mahadcelinaya afka kaliya ma ahane. reer Gaalkacyo waxaad i tusiseen wanaaga agtiina aan ku leeyahay. reer Gaalkacyo waxaad i tusiseen qof idinka maqan oo idin soo noqoto inaad rabtiin. waxaana idin leeyahay waa idinla joogaa meesheedii awowayaashii iyo aabbahay iyo dadkaygii ku dhashteenna hadda hal baa u tagi doonaa insha Allah. waana idinku dhex jiraa ayaantan. haweenka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin qiirada iyo xamaasadda darteed ma hadalka ma badin karo. waxaan leeyahay guuleysta Gaalkacyo dadkeeda ha guuleystaan guud ahaan Galmudug ha guuleysato Soomaaliya mid ah insha Allah. midnimada iyo xorriyadda iyo dadkii looga bartayna waa dadka halkan insha Allah waan ka wada shaqeyn doonaa. ciidankaygana waxaan leeyahay amniga iyo guud ahaan maamulka Gaalkacyo waa mahadsantihiin 100% waana isla joognaa insha Allah. Liban Cajiib Xaaji TV Universal.